قريبوجن وبحيين هل يجي حنتي هميلدودا runtii dadkan ku nooli dad ma noqdo haddaanay qirin modeliskooda ama dadka mudan in lagu daydo haddaanay yeelanin hankii iyo jidkii ay u mari lahaayeen iyo kuway ku dayan lahaayeen iyaga ka horreeyey aad baan ugu faraxsanahay maanta haddii qabiilkii uu ka adkaaday inankaa wax qoraya oo uu ku dhiiradayba inuu reerkooda wax ka baxsan amaano waxa ina dishooday oo ina ragaadiyey oo ina baabiyey oo runtii beerka nagaga fadhiya waa qabiilka markaad soo qaadanin ee qof kula fadhiya ama amaanto hebel hebel oo sidaas oo kana oo keera markaad dhaxda marayso ayuu koonaya reer ma reer cidbataag waa naga daa tuuga dhulwili laakiin maanta haddaa intaaba saarteen inkastoonay dhammayn oo Soomaaliland qaar badan ka maqan yahay oo maxaabiistiiba maqan yihiin waxa weeyaan inaad ku dartaan bay ahayd kuwa kale modeliska ayana laakiin waxaan leeyahay waa ku dayasho fiican in qolooyinka qalinka qaatay wax qorayana waxaan leeyahay halkaa ka sii wada ku dhiirada inaad wax qortaan waan hubaa mid iyada heli maysaan wax akrista oo inteena halkaa fadhida hadda ay soo wada eegaysa wax buug furan eegaya ma jira waxaanu nahay ummad wax dhageysata waxna tilaha ummad wax akhrisata ma nihin laakiin ha ku niyad jabina qora waxa iman doonta ummad soo socota oo wax akhrisata oo hadhowta eegta wixii ay qorteen maanta si ha ka sugina qofka wax qoraa inuu la simo caalamka kale waxaan hadda ka fakarayay inankaasi buugga uu qoray adduunka kale qofku marka buu qoro wuxuu gaadhaa millionaire waxaad ka soo qaadaaba 1 milyan oo koobiin laga iibsado waa millionaire automatically billionaire bay gaadhaan laakiin innaga ma sugayno waxa way isaga deen loo raayo laakiin waxa weeyaan waa in la wado waxa weeyaan in halkaa laga sugo way isku caajisteene waxaan idinku deeqayaan yaro qosala anigu xoolo kuma qaato وانا قريبوكي ويالا وحلي كنت شاكيه شاكو مid 100 شاكيه شكل لي هدان قالنا وسو قري دونا لكن عروتي ناخر صندوق ان شاء الله waxaan idinka soo qaadayaa sheeko yaroo had markaad taagantiin hadda ay u baahantiin saa ugu seexataan farxad waxa la tusmaa dagaalantay ka warrama waa tusmo ayaa dagaalantay tusmo waa islaan guri jooga horta sheekada haddana iyo arrin siiyo waxaan markuu yimaadaba horumarka la gaadho waxay isku hor yimaadaan bulshada qayb ka mid ah oo qayb aan dayigu la socon technology-gan iyo isgaarsiintan horumarkooda dadka aniga ila day waaweyn iyo intiiga si waaweynba waxa kaga dhaca had iyo jeer waxyaabo badan oo ay iskaga hor yimaadaan dhalinyarada oo qosolkeena islaan haddaba guri jooga oo annagu aan isnaqaano tusmaaliya oo sheekooyinka had iyo jeer ku daro oo hawsheedu aan ka badnayn gurigeeda iyo reerkeeda barbaarinta ubadkeeda magaaladana ka taqaana sariibada wax ka soo iibsatay macdarada ku wareegsan gurigeeda ayaa maalmaha kamid waxa ku horimeena dhalinyarada wargeynana oo mobile smart wato jeebka ugu jiro earphones ku xidhan yihiin halkan microphone-ki u dhow yahay switch-kiina haysta call baa ku soo dhaco markaa qabtay tusmana waa ku soo dhowdo sariibada ka timo in yaroo way seetaa tamaandha ay ugu casaysanayso carruurta bariiska iyo xoogaa muusa u saaran markay u soo dhaydo ninkii koolka uu ka qabtuu salaamay oo yidhi assalaamu calaykum tusma way faraxdo jaarkay moodeen ku xajira calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh markay isu soo dhawaadeen haddana ayuu yidhi baryahan kumaan arag xaggaa jirtay inankii buu la hadlaya markaasay tiri maanaa gurigiiyo sariibadaba dhaafo xaggaad iga weydiisay ma naqaan intii kumudayna ninkiibu wax weydiisanaya wuxuu yidhi maanta way iga caddo waxba ma hayaa igala xishoone mid iyo jab u xadaysay soo tuur asay tiri ku go ma muuska carruurta u wada igama maana xabadkaasiina arrintu way sii xumaan doontaaye markay isweydaaranayeen ayuu ninkiibu la hadlayay haddaan waxba haynin caawa xaggeen isku aragnaa tusmu kor bay u boodo dhirbaaxay ku dhufatay tiri qirimi lagaasi bal wuxuu igula hadlayaa arag waxaan idiin sheegayaa halkaa ka sii wadeen
hambalyaan leeyahay odayaasha halka fadhiya iyo hablaaba ee noqday muxuu ahaayey inta hanantay hankoodii anigu maan hana himiladaydi aniga inta la midii waa maxaabiistii xabsiga naga saara markaasaanu hananaya salaamu calaykum محمد حسن علي أسكر وجهي هذه أدو مهتسية هي